nabadda wadayaal ku soo dhawaada wararkii u dambeeyay ee dunida islaamka iyo caalamka intiisa kale waxa idin waramaya anigu Axmed Doola qodobada aad maqli doontaan waxa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xisbiyada qaranka ku eedeeyay inay ku dhex milmeen qabyaaladda ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu xoogaga TPLF u qabtay inay isku soo dhiibaan 72 saacadood dablay hubaysan ayaa 5 qof ku dilay 18 kalena ku afduubtay weerar ay ku qaadeen masjid ku yaala gobolka Samfara ee waqooyi galbeed ee dalka Nigeria qodobadaas iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan soo dhawaada daawadayaal aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay munaasabada uu ka qayb galay ayaa waxa uu xisbiyada qaranka ku eedeeyay inay ku dhex milmeen qabyaaladda shacabkuna ay yihiin kuwa ka dambeeyeen xisbiyadu ay ku dhex milmaan qabyaaladda waa kan madaxweynaha oo ka hadlaya arrimahaasi dadkii mujtamaciga xukumayay oo isku waafaqsan inay dawlad casri ah samaystaan xaqiiqadu ay tahay inaanay koodi ka guurin وأنا أقبل دولة عصرية وايد قفت مركا وحوبة هذا يا هرتا إن الله شرحه واحد دولة أي نصارى تلقون تاسوات شرعية حد يمكن أن نديره إنه هو لكن نالكا خيركم كل شيء واحد كود ذلك سريع عاد ما إلى الدم لك فقير هذو قف ظلمه وحاولوا حول يسول عنه وتأتون وحياة الإسلام وحكمله مرة تي سياسة حزبين يسعوا حزبين كان بقانونين وايد كذا قبل خدوري لقابلنا كي يسمى ذات الأشرع إلى الرأي حزب ضد بهاي ضد واحد دوري يوم باصعنا وإلى الشعب والله قلنا يا وحلو كذا يا نيد الكلبلة وهو حضور حلا وعنده ولد عصوا قول والله غيرها وريك يسمونه هذا ديدو عد كذا كاتجاي يا قفرنا مرحبا عظمة يا درب صعبة ضايركي بروفيسوركي مختاركي كي أتوه صوت بعضه هبلنا ولا مش حرام يا مدير هذا هو اسمه يا قبلات بالي قبلات واحد رسيا واحد أنا دور بالي شيء حقيقة لا دور ربي هو بان الأهلي وح الله دور ربي إلا ما ينسكت على نه لا تجرك ويل يجبر وحصو كل احترام society-ga deetana isagu wuxuu arkaa in siyaasad sax tahay afarta jir buu ku gaarayaa lixdan buu ku gaarayaa deetana waa geeyad qaaday ka dhaadhicinaysid sida meel uu gaarinayo markay wadaasho ka aragnay in badan laga sheekeeyay laakiin talaabo laga qaadi waayo waxa nala noqotay inaynu ku noqono dadka aan barno waxaan doonay iyo waxaan u hubinayo inagoo qoladiya inagoo laandheereeya inagoo faankiya inagoo reer dadka u wanaagsan yahay oo kuwa kale aanay wanaagsanayn u fiirsan reer walba gaarashadaan iyaga war kuwa kale ma midna wax kale ma ogola way isma gudbaan isma wareystaan ninada si iska u faan badan isaga ugu dhaqan wanaagsan isaga ugu qaalis laakiin inaga aynu qaali wada noqon ma isku daraa in wax weyn noqonay ayay u baahan tahay la isku riixo saddex waxa iskaraacayoona dhibaato inaga haysata dhaqankeedii iyo kii la doonayay dawladnimada sharciga dawladda dastuurkii la qoray sharcigeena dastuurkii ma ogola xeerkeena ma ogola way heerku daafaca caaqilka iyo suldaanka wuxuu u dhaartay oo ilaaliya jil qaranka ba ilaaliya isagu marka uu jilkiisa maruu daafaca marka hadduu kii jilka daafacay kii baarlamaanka ee qaranka loo doortay ama guurtida qaranka loo doortay ama madaxweynihii ama wasiirkii ka awood bato oo shacabkii ka raaco dee ka qabilka wada awood badanaya marka waxay u baahan tahay in la yidhaahdo dadku waa adduunkooda wada qabaa'il ingiriiska hadda kastan ku dayanaa waa qabiil buu kala socdaa haddana wuu isku adigi chinahaas waa qabaa'il waa dhaanas laakiin wuxuu eegayaa inuu qabiilkii qaranimada ku dhiso ilaaliyo qabiilkiina ilaaliyo dantiisa ilaaliyo inagu tiibaa weli inaga qasan marxaladda marka qarankii waa la dhisayaa mikrafoonka waa la odhanaya sharciga waa la samaynayaa laakiin waxaa la halayaa weli sentimentka reerka ka weyn labadaas waa dhibaatooyin inala jirtooyin marayna inaynu isla fahno la barto aan kaga baxnaynu doonin
morality markii ninkii la doortay xisbigu qabiil kugu soo doortay ee baarlamaan tahay ama wasiir laga dhigay ninkii waxa leeyahay reernimaad ku tiri reerkii maxaad u qabatay hadduu reerkii waa qolaan tiirkiisa doona suuq u yaala baarlamaanku birta noqonaya reerkii ma raacayo haddii wasiir wal iyo xildhibaan waliba reerkooda u shaqeeyo qarankii ka tagana qaranka ugu dumaya ninkiina dadkii soo doortay waxay doonayaan taa jeeska ah wada dhan waa mashaakilka aanu arko inuu sharcigan iyo barashada aanu barayna aanu kaga dhaweyno uu daweeyo qabtay 72 saacadood inay isugu soo dhiibaan dawladda xilli ay ciidamada Itoobiya ay ku sii jeedaan caasimadda Maqla. Abiy Ahmed wuxuu hoggaanka Tigreega u sheegay in la marayo meel aan laga noqon karin xoogga jabhadda xoreynta shacabka Tigreey ee TPLF oo gacanta ku haya dhulka buuraleyda ayaa wacad ku maray inay dagaalka sii wadayaan oo aanay marnaba isdhiibayn. Dagaalka dhowr toddobaad dhex marayay ciidamada dawladda dhexe ee Itoobiya iyo kuwa daacadda u ah Tigreey waxa la rumaysan yahay in boqolaal qof ku dhinteen kumanaana ay ku barakaceen. Markii horeysay ciidamada dawladda dhexe waxay ka digeen magaalada Maqla oo ay ku nool yihiin 500,000 oo qof in taangiyo lagu hareereeyo ayna dhici karto madaafiic in lagu garaaco wax naxariis ah ma jiri doonto ayaa uu yidhi afayeen u hadlay ciidamada TPLF oo u warramayay wakaaladda wararka ee Reuters. Wuxuu sheegay ciidamada daacadda u ah TPLF inay diyaariyeen qorshe rogaal celis ah oo ay kaga adkaanayaan ciidamada dawladda. Hirariye muujado dagaal ayay nagu soo qaadeen balse waxtar ma leh ayaa uu yidhi maruu u warramayay wakaaladda wararka ee Reuters. Afayeenka TPLF dawladda dhexe ee Itoobiya waxay sheegtay in ciidamadeedu toddobaadkii hore ay qabsadeen magaalooyin muhiim ah balse waxa adag in la helo ila madax bannaan oo xaqiijinaya guusha ay dawladdu sheegatay maadaama oo weli taleefanada iyo internetka deegaankaasi ay go'an yihiin tan iyo markii uu dagaalku ka bilowday halkaasi. Dabley hubeysan ayaa 5 qof ku dilay 18 kalena ku afduubtay weerar ay ku soo qaadeen masjid ku yaala gobolka Samfara ee waqooyi galbeed ee dalka Nigeria sida ay boolisku sheegeen. ilaa 100 dabley oo ah tuugada looda xad oo ku socday mootooyin ayaa rasaas ku furay masjid ku yaala xaafadda Dutsan Gaari ee degmada Meru xilli ay dadku tukanayeen salaadii Jimcaha. Burcadu waxay dileen 5 qof oo cibaadeysanaya waxayna afduubteen 18 kale oo ku jiro imaamka masaajidka. Waxaa sidaas AFP u sheegay afayeen u hadlay booliska gobolka oo lagu magacaabo Maxamed Shehu. Dadka deegaanka ayaa sheegay in dadka la afduubtay ay yihiin 30 qof. Dableyda ayaa soo weeraray masjidka xilli uu imaamku akhriyay khudbadii Jimcaha waxayna afduubeen 30 qof oo ku jiro imaamku kadib markii ay toogasho ku dileen 5 qof. Waxaana sidaasi AFP u sheegay Ibrahim Altine oo ka mid ah dadka xaafadda waqooyi galbeed ee dalka Nigeria. Waa meel caan ku ah burcadda hubeysan ee weerara xaafadaha kuwaasi oo hadallooda dadkana afduub ayagoo ka dalbanaya madax furasho. Qodobkaasi waxa uu guniya gabagabo u ahaa war waxaanu idinka haynay dunida islaamka iyo caalamka intiisa kale. Anigu Axmed Wala ayaa idin warramayay. Nabadgelyo.